السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياشا عادي aad baan maanta u faraxsanahay farxadaasna waxa iigu weyn anoo xabiiba axmed cali ah oo channelka la sheergareeya xaawo xaaji sidaad u egtihiin inaan maanta noo imaado qof magaaladaydan joogo aad iyo aad caan annaka xaggeena nooga ah caannimadaasna ma aha midda Beyonce taas ma ka hadlaayo waxaan ka hadlayaa caannimada sida muhiimadda dadka Soomaaliyeed bulshada ku dhex jiro muhiimad u leh wuxuu kaloo muhiim u yahayna bulshada weyn oo dadka professionalska ah uu ka mid yahay aniga waxaan jeclahay dadka inay qisadooda nooga sheekeeyaan waxaan soo dhaweynaynaa magaciisa umaan ii sheegi asaga inta kale iin sheegay Cabdiraxmaan Kaahin soo dhawow walaalo maasha Allah adeer iyo walaalba waan dhahaa because waxa weeyaan mar haddii ubad la wada dhalo waa la siman yahay aniga aragtidayda laakiin wuxuu dheer yahay khibrad wuxuu dheer yahay into professional worldka ku jiray iyo waxaa la yidhi waayeel oo qof aan isyeelyeelin inkastoo aan waayeel aan ahayn waxaan ka wadaa wisdomka waa wax oo adiga you can't fake it nacam waa wax oo ku imaado waqti iyo dadaal iyo waxbarasho marka Cabdiraxmaan oo soo dhawow ما شاء الله marka noo sheekay waxaad noo sheegtaa professionkaada ama shaqada aad qabatid marka laga saaro aabanimo and all of the other personal stuff shaqadaada maxaa weeyaan صح shaqadeeda hadda imiga aan sameeyo for last door 10 sano ugu dambeeyay waxa weeyaan caafimaadka madaxa ama maskaxda waxaan la shaqeeyaa dhalinyar iyo dad waaweyn qoysas iyo group waan la shaqeeyaa marka marna waxaan ku shaqeeyaa privatekayga shakhsiyad private oo clinic leh marna waxaan la shaqeeyaa ururo caawiya ummadda for last 2 years in soo dhaafay ayaan u shaqeyn jiray urur community oo dowladda Ontario fangareysay si dadka maxaan ku rahdaa madow gaar ahaan uga caawiso wixii ku saabsan caafimaadka maskaxda iyo ugana hortagto dhibaatooyinka qoysaska faamiyada madow haysta iyo ubadkooga haddii noqoto wixii ku saabsan khatarta ku sugan yihiin jeelka iyo wixii kale dhibaatooga imanaya iyo wixii wanaaga ay kordhinayaan noloshooda marka iyagana waan u shaqeyn jiray muddo 2 sanadood laakiin imiga sanadkan ugu dambeeyay aniga baa iska u shaqeysta private clinic-ga ku saabsan waxyaabahaas ما شاء الله ما عادي أبى أنا فرحسنا هاي إنه إن شيء شقة وقبته شقة علوس أو إنه هي حدان بلد برشة كتيرنا ولي بس يجارهان وحنكون فرحسنا هاي إن تقف صوماليا وحنا فرحسنا أرنتاس إنه وحاويان أنا قبل شني 8 سنة community كده شقيني social service worker أهان سكول لذا هاي سكول مركب وحنا لكل ماي عرور بدن أو كشيء جنيسة حنون كان مسكحة إلا وجار دمر marka waxaan ugu farxay waxaa tahay qof u noqon karo gaabka u dhaxeeya waalidka iyo caruurta qof nacam ka jahil bixin karaya kaas waxaan la kulmi jiray dad oranaya ama waalid oranaya may ma buko inankayga ma bukto inantayda haba ayaka isku yeelyeelaya haba ayaka iska waalaya caadi weeyaan dhibaato ma qabaan waxay ka badbaadeen annaga waxaan ka soo badbaadinay war iyo dagaal maxaa dhibo haysta marka waxyaalahaas oo kale adiga ma la kulantay inay dadka Soomaaliyeed ay dhahaan waan la kulmay dadka Soomaaliyeed iyo dad kaleba aan Soomaali ahayn inta badan Soomaali maahin cadaan iyo Carab iyo Muslim iyo dad kaleba markay ku saabsan tahay caafimaadka maskaxda dhamaantood way ka wada siman yihiin waayo ma aqbalaan in caafimaadka maskaxdu ay saameyn karto iyaga aba ubadkooga ama reerahooga marka inta badan danaayl waxa la yiraahdaa ay ku jiraan diiditaan caafimaadka maskaxda marka waan la kulmay dad fara badan oo aankaas laakiin waxaad moodaa imiga Soomaalida community Soomaalida inay aqbalayaan more and more ay ku imanayaan ay leeyihiin dhibaatada ay haysata rag baa yimaada Soomaaliya oo dhibaatadooda ii sheegta awal way adkeed in rag Soomaaliya ay qirtaan waxay yimaada hooyooyin iyagoo dhibaatadooda ii sheegta amba kuwa ubadkooga saameeya ii sheegta marka gaar ahaan markay waalidku yimaadaan dhibaatada ubadkooga saameeya amba saameysa ay doonayaan xal in loo keeno waxaan ku raadaa xal haddaad doonaysa inaad keentaan waa inaad ogaataan dhibaatada halkay ka timid
boqolkiiba 80 waxaan odhan karaa dhibaatada ciyaalka ubadkeena saameysa waxay ka timaadaa guriga ayay ka timaadaa waalidkeena ka timaadaa waayo waalidku hadduu aaminsan yahay fikir qalada ilmihiibu kusoo korinayaa fikir qalada fikirooyinka la yidhaahdo waa fikirooyin qaladana aad bay nagu badan yihiin yacnihii marka qaarkood siday aada u badan yihiin waxaa la caadaystaba in laga dhigto wax reality oo lagu dhaqmo oon laga xishoon marka fikirooyinka qaladkaasi ilmihiibu kusoo koraya kiibuu qaadanaya waa la isku dhibaya shaqadeeda inta badan waxa weeyaan fikirka qofku aaminsan yahay ku yar amba ku weyn amba qof walba inaan maogtahay aan darso aan eego kadib haddaan ogaado fikirkaasi inuu yahay fikir qalada inaan qofka aan siiyo fursad uu ku fahmi karo fikirkiisu inay qalad tahay anigoona u sheegin oona ku odhan fikirkaagu waa qalad marka su-aalooyin baan weydiiyaa qofkaasi siinaysa fursad oo isagu dib isugu fiirsado wuxuu leeyahay uu marka dambe waa run uu yidhaahdo imika tusaale haddaan ka bixiyo for example qof baa aaminsan waalidkeygii ma jecla caruurnimadeedii maan arag jacayl waalid ma tusin anna sidee baan u siin karaa ubadkayga jacayl oo kale marka qofku hadduu aaminsan yahay jacayl baan u baahanahay ma aan helin dabeecaddeedana aan ahayn waxaa ugu wacan taasi baahi ayuu ku xidhay jacaylkii caruurnimadiisii uu waayey marka qofku hadduu taasi ay ku qufulaato wuxuu noqonayaa qof had iyo jeer baahan noloshiisa waxna ay ka maqan yihiin waxaa ka maqan wuxuu ku buuxinayaa waxyaabooyin kale ayuu ku buuxinayaa marka dadka caynkaasoo kale inta badan waxaa lagu yaqaanaa in waxa la yidhaahdo dependence affective ayay yeeshaan dadku markay yeeshaan dependence affectivena waxay galaan waxyaabooyin fudud amba sigaar amba khamrad amba drog amba wax kale ay ku noqdaan compulsive hadday noqoto waxay iibsadaan dhar ay iibsadaan iyagoo dharkooda guriga ka buuxo amba kabo ay guriga ka buuxaan ayay haddana kabo had iyo jeer cusub ay soo iibsadaan marka waa compulsive ayay qofku noqdaa dadkaasi waa dadka la yidhaahdo waxay qabaan dependence affective haddii af soomaali lagu turjumo weliga kumaan turjumin lakin migaan isku dayin aan isku dayno waxa weeye maqnaasho ay ka maqan yihiin affective yacnihii jacayl amba wixii wax ka maqnay ku buuxiyaan ay ku buuxiyaan marka affective kelmadda affective ayaan raadinaya soomaali waxaa lagu yidhaa adu waxaan jacayl baa ka maqan jacayl ka maqan yaha weeyaan marka lack of affective ayay ugu wacan qofkaasi uu galo meel kale ka raadsado marka fikirka qaladka ah ee aaminsan yihiin waxaa ka mid a waxaan u baahanahay in lay jeclaado marka ingiriis haddii lagu turjumo I need to be loved francisna j'ai besoin d'être aimé marka baahi baa lagu xidhay qofka jacaylkiisii taasi waa khatar marka waxaan odhan karaa marka su-aalooyinkaan weydiinayo ay ka mid tahay maxaad uga jeedaa baahi baan u qabaa baahidu miyayna ahayn biyahoo kale haddii dad biyo wadid waa dhiman hurdadu waa baahi marka 5 baahi baa jirta 5 needs baa jirta 5taasi wixii dhaafsan needs maahin oo waxaad jeceshahay weeyaan marka qofka hadalkiisu intuu odhan lahaa waxaan u baahanahay in lay jeclaado waxaa habboon inuu hadalkiisa bedelo markaas uu idhaahdo waxaan jeclaan lahaa in lay jeclaado amba we prefer oo kale ya waxaan ka doorbidi lahaa saas oo kale marka kelmadaha la isticmaal marka qaarkood ee qaladka ah waxay la yimaadaan baggage culus ayay la yimaadaan oo inaga dhibaatooyin u keenaya marka reality qofka wuu aaminsan yahay hadday qalad tahay waxaa aaminsan hadday qalad tahay waxaan tusaa in sidii uu isagu isku suxi lahaa inuu fahmo markuu isasaxo acknowledge buu sameynayaa inuu qalad ku jiro marka hadda wuxuu sameynayaa sidii uga bixi lahaa maya waxaan ku faraxsanahay oon hadalkaada ka fahmay waana dhalinyarada mar walba waxay ii sheegi jireen markaan iskoolada ka shaqaynayay
toos hadalkii nacam intaad u dhihi lahayd oo niyadaad ka jabin lahayd baad ayaka inay isfahmaan baad u sarabgaraysay environmentka inay isqirtaan ama isdib isku eegaan waxa ka maqan taana aad bay muhiim u taho caruurta dhalinyarada pressureka ay ka hadlayaan waalidka hadalka adag oo ku tuurayaan ama inaydaba u qiranba inay wax dhibaato ay jirto ba ugu weyn aniga markay ila kulmeen oo adigoo kale ama social worker oo mental healthka aan raadino inaan ugu yeerno waxaa keenay inay u baahan yihiin qof at least qira inay dhib jirta marka qiraashadaas way ku qanci lahaayeen laakiin waalidkiisan kuu sheegay waxay oranayaan way isku yeelyeelisaa way isku yeelyeelayaa maanana jacayl ku tusin intii xataa haddii qofka uu ku qirto iga raalli ahow ad adeeg baan u dhashay Soomaali baan ahay haddii la dhihi lahaa at least qofku uuba yarad naciga waxba miyaan ku jeclayna xaafadda mar walba cunto baa ku siiyaayo guriga wanka excuses bay waalidka raadiyaan caruurtan enough oma marka examplekaas waan fahmayaa oo 100 jeer baan arkay waxa anigan ogahayna addictionka waxa la yiraahdo ama maandooriyaha wax bay ku buuxinayaan saa sheegtay wixii ka maqnaa bay rabaan inay ku buuxiyaan marka aad iyo aad baad u mahadsantahay clarificationkaas aadna tustay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo xagee laga heli karaa magaaladan dhexdeeda because waxaa laga yaabaa dad reer Ottawa anin dhowr sano ka hor kuma aqoon fursadaan isku helnayna dhalinyaradan la shaqeynay baan ugu yeernay inaan toosno qof ayaka u eg oo psychotherapist ah haddaan dad tagto waxay ku oran candles daaro music dhegeyso you know Beyonce even waxay dhihi naag madow ayaan daaro laakiin qofka markuu ku egyahay dhaqankaada iyo diintaadana fahmayo wuu si kale oo gaara kuuga aqli celin karaa wax kasta rabti jeclow wax kasta tahay ahow laakiin wax badan buu kuu taray inuu qofka ku egyahay dhibaatooyinkaada dhaqankaadana fahmayo marka xagee laga helaa office-ka wuxuu ku yaalaa Ottawa dariiqa San Laurent iyo Woodley uu dhow yahay address-ku waxa weeyaan waa 2250 English ko sheeg everybody knows the address in English that's we got 55 Boulevard San Laurent Boulevard and roomku waa 131 and by appointment baa lagu yimaadaa and telefoonkeeguna waa 613-889-7177 maybe halka hoosta waa inaan naas Axmed weydiiyo inta bay tababaraysa ma sahlan it's not easy maxaa waxaa jiba tirahda haddii magacay Google aad gelisaan Abdiraxmaan Kaahin waad arki doontaan and networkayga si easy aad u heli kartaan marka qofkii shaqeeya gaar ahaan assurance uu ka horkariya servicekeyga waayo servicekeygu waa bilaash maahin waxa weeye cost money gaalada policy afaan kala saacadii waa ilaa $100 saacadii weeyaan marka qofku hadduu assurance leeyahay assurance-ka ka bixinaya marka qaarkood ururo ayaa jira iyagu funding hela marka haddii ururada ay soo maraan kadib markaa iyaga ka bixinaya servicekeyga absolutely maya ku yaaca reer Ottawa yaana ka xishoonin inaan dhahno waxaan u baahannahay in nala caawiyo ama inaas caawino maxaa yeelay siduu Abdiraxmaan Kaahin adeer iyo walaalkana uu ka dhawaajiyay dad badan baa qiranaya oo oranaya wax baan haysta masiibaan haysata ilaahay masiibada naga koriyo dhibaata dhalinyarada ku dhacday wax badan baa jira marka sidaad sheegtay aniga waan dareemayaa inuu community-ga soo dhawaaday حتى هذا يوتيوب كنت عم فري مسجات ليس در انستغرام كيغا هرجيسة سوماليا ذاتك أورانيان حقين كهلنا إن سوماليا سيرفيس كان أو سايكوثيرابيست كي إيو كونسلينج كا هويا سايبو سميسي هبرير باسا أبتي باسا قفل بابا سيم تينغ هالكن كدا عمل بكدا عام مركا ما شاء الله أدبان كو فرح سنين المانتا نوتي معدي وحكالون ربنا كويديو أنا يسيقار مرضو وغشا كيسنا وارنت جعيلكا topic أنا أدبان جعلنا I love love يدي لودان مودي يدي لودان مودي ما يلوب جعيل وابد أفراد كساعة جعيل ومسك حيث كوكو فلان بها سينو يلوبيا I'm not gonna forget مركا وحان ربا in episode كلان حتى كده يكرنا because أنا قدونك حاول جعلها هاي قف أو ملايين سداء وين وجاري وواحد سؤال إحنا وحصوا كبحنا مركز ويديسد هو يا أبو هو يجعلك إنه بشكل وحوا كبحنا لكن عبد الرحمن كاهن عرض بلاش معهن I'm not saying you're old لكن وحكوا ذا قف جعل كشيء كينه ودت كيجي
الجعيل بان كسميسنا هاي أدون كده بأوباهن وحير maybe another waxaa ka dhigi karna episode laakiin wax yar nooga taataabo jacaylka jacaylka ingiriisi dadku waxay ku garanayaan waa love bay dhahdaan faransiisku waa amour waa shucuur weeyaan shucuurtuna waxa weeyaan emotions jacaylku waa emotions positive marka emotionka laga hadlayo ba shucuurta laga hadlayo waxaa jira 3 nooc oo shucuurta midi waa ta la yiraahdo waa positive waa jacaylka waa kalsoonida waa serenity ta la yiraahdo midna waa mid bartamaha ku jirta oo aan ahayn positive na maahin negative na maahin taasi waa ta la yiraahdo rabitaan ni waxa la rabitaan waxa weeyaan desire yes waxaan rabaa inaan shower inaan meedho waxaan rabaa inaan cadaydo waxaan rabaa inaan ordo marka rabitaan weeyaan taasi positive na maahin negative na maahin taasi markuu qofku depression ku jiro depression waa tad kale negative ka weeyaan waa nigri waa 3 shucuur baa jira waa positive oo jacayl ka mid yahay mid bartanka jirta oo neutral waa tarabitaanka tan negative kana hadda tusaale ka soo qaato waa depression ka waa anxiety ga waa weeyaan hostility tarado marka depression markuu qofku qabo rabitaanka ku yaraata rabitaan inuu maxaan ku radaa meedho ayaa ku yaraata rabitaan xitaa inuu cadaydo ayaa ku yaraata haddii laba qoysoo isqaba hadday yihiin hadduu ninkuu qabo dhibaatadaasi depressionka rabitaan waxaa ku yaraada inuu sariirta islaantiisa ugu tago hadday islaantu qabtana inuu odagayga sariirta rabitaanku ku yaraato taasina dhibaatada ugu badan qoysaska saameysa weeyaan marka rabitaanku waxa weeyaan waa desire qofku uu ka go'o marka depression ku jirto marka 3 nooc baa jira aan ku soo noqono tii su'aasha ahayd jacaylku waxa weeyaan wax ilaahay bil aadamka ku abuuray waa wax positive oo qof walba uu rabo nabiguna dhowr jeer ayuu ku celceliyaa saxaabtiisii mar iyagoo masaajidka fadhiya ayuu nin soo galay nin saxaabiyo la fadhiyay nabiga calaysay salaam ayaa yiri ninkaasi waan jecelahay buu ku yiri nabigu wuxuu ku yiri miyaad u sheegtay maya buu yiri ka oo u tag oo ku dhaw ku jecelahay marka halka waxa ka muuqata in nabigu ku dhiirigelinayaa saxaabtiisa inay verbalize garayaan inay afka ka sheegaan qalbiguna ku hayaan ku jecelahay maahay qofka jeceshahay inaad afka uga sheegtid adiguna ka xishoonayn oo ku yiraahdo waan ku jecelahay marka taasi waa dhiirigelin mar kale waxaa jirta nabigu calaysay salaam uu yiri qof jannada gali maayo ilma laga helo afkiisa la ilaaha illa muhammad rasuulullah la ilaaha illa muhammad rasuulullah afkaaga laga heli kari maayo ilma qalbigaaga aan laga helin jacayl marka taasina waa mar labaad oo kale oo nabigu tusay muhiimka jacaylku ay leedahay asxaabtiisii buu ku yiri miyaa nii sheega hadaba waa yahay sida jacaylka u kordhin lahaydeen haabay yiraahdeen ordo dhexdiina isu soo salaama isu soo booqda sida maanta aan soo booqanay reerka aan u nimanay ma sha Allah aanu duceynay ilaahay inuu gurigeen quruxda badan inuu soo dhameeyay inuu barakada ku soo dejiyo waxa marka ay soo booqda isku taga waxay xoojinaysaa jacaylkii bini'aadamka isku qabeen marka waa wax bini'aadamku uu baahan yahay markay noqoto qoysaska dhexdooda ubadkeena haddii jacayl lagu soo koriyo imiga waxaa dhici karta ilmahaaga inaad maalin walba aad ku tirahdid 10 jeer in ka badan hooyo waan ku jecelahay amba anigu waan ku raadin ilmahayga aabo waan ku jecelahay haddaan 10 jeer ku celiyo maalin walba dib buu igu soo celin doonaa isagoo marka dambe uu oranayo aabo waan ku jecelahay aniga aragtidayda Somali community haddaan nahay aniga waan ku dhex koray waalid wanaagsan baan qabaa laakiin oo maana dhalan dabeecadaas intaan koraya ma aan arkin aabay hadda waan ku qasbaa I love you say I love you markuu qosla I love you good haya iga tag laakiin waa did 10 goor idin oo dhalaan lahaa that's what I think okay hadaba ubadkaaga 10 jeer dad ku jira markay yaraayeen ad ku amisid iyaguna way kugu soo celin doonaan ma insha Allah marka kelmadda jacaylku waa kelmad naxariisa qofka bini'aadamku u baahan yahay in la isku sheegana waa muhiim ma ahin in la yiraahdo waxaad ka garan doontaa xarakaadkeegana ku jecelahay ma qofka aad u sheegtaa ma aad
topicaas jacaylka halkaas kuma dhammaan is one of my favorite topics waa waxaan ugu jecla adduunka inaan ka hadlo xataa haddaan haysan iyo haddaan haystaba waa iskulkay mid waxaad moodaa ina just one of my favorite things ee adduunka marka adeer aad iyo aad baad horta u mahadsan tahay inaad maanta na soo booqatay sheekadeenana ma dhammaanin laakiin episodekan bay noogu eg tahay informationkaadana hoos baan soo dhigi doona markii lay baro sida hoosta loo soo dhigo laakiin aad iyo aad baan ugu faraxsanay inaad channelka nagala soo qayb gashay inkasta ood mashquul tahay mar walba lagu helin inaad waqtina siisay waa wax aan la heli karin qofkani mar walba appointment adiga waa inaad appointment samaysataa to see him and then he might have another appointment oo kaa muhiimsan so haddii ay noqoto mental healthka waa wax urgenta ha ka xishoonina aan qirano aan isku sheegno aan niraahno help aan u baahanahay halkaas bay ka bilaabataa dawada aad iyo aad baad u mahadsantihiin daawadayaasha cabdiraxmaan kaahin our psychotherapist here in Ottawa waan kugu faanaa waan kugu faraxsannahay soo dhawaada soo dhawoobay dhahaan raxmarka which means you gotta go I know it's weird so dhawoobay dhahaan it means you gotta go السلام عليكم